hadlaynaa ama aan ka hadlayaa dhaqanka iyo siyaasadda hal la kala saaro dooda ah ee beryahan socota amba halgamaagii weynaaye aadan allaale uu ka hadlay ay ragna leeyihiin dhabarkii baa taabatay dhabarkii ma taaban runtu faanta maaha runtii baa iminka lagu dhimanayaa run buu sheegay aadan allaale waxba kama ogudina raggiinaasi wax alla waxaad ku ogtihiin gudaha ma jirto in yar baan nii sheegi oo macnaha ku saabsan isla xeerka iyo siyaasadda ogaasku waa ogaas beeleed annagu sidaad ognahay waa ogaas beeleed waa ogaas hogaamiye dhaqameed weeyaan laakiin kani wuxuu noqday siyaasi haddaan in yar niiga sheego inuu xaggu siyaasi ka noqday de wuxuu ka tirsan yahay ururka b b da maxaa caddaynaya haddaad tidhaahdaan uu ololeynaya cishadowta xitaa aqalkiisa intuu ku shiriyey ayuu ololeynayay waa xubin guddi fulina weliba oo b b ka tirsan marka tan laga hadlayay waa taas ta kale daraad kolkay wiilashii intii weliba isagu uu soo xulay magaranaysaay uu yidhi way noo matalaan gobolka city kolkay doorashadii de iyagun baa isdoortay doorashadii ay dhammaatay dabadeed way shireen maadaama ay shireen waxay ku shireen dee raggii ka sarreeyey kolka horeeta ciisaha u sarreeyey amba degaanka ha joogo ama ha joogo dawladda dhexe weliba kii madaxweyne ku-xigeenka ah aada buu u liitaa way dhaliileen dhexdooda iska soo xuleen iyagu kay iska soo xuleen ayuu ogaasku yidhi ma noqonayo wiilkaa in adeerkay ee ha noqdo hadda ka horna annagaa u tegnay aniga nila hadlaya waan u tegi aadan allaale 6 baan ahay 6dii aqal u dhan waxbana niima tarayo waxbana nigaba goynaye iska daaya ha fadhiya halkaa buu naga yidhi ibraahim wuxuu ahaa waad garanaysiin so kii ma ahayn haweenkii ciyaalka lagu horgubay dirdhaba ee daraadna lagu horgo gowracayay maatida kaasuu yidhi waa in adeerkaiyo idaaya ha fadhiya kow waa qabyaalayste ta koobaad waa qabyaalayste waa siyaasi runta kolkii la sheego dadku ma aha in kolba xagga loo wareego ogaaskuna maaha de nebi ilaahay soo diray waa kii yaraa shalay la qabtay maaha imise ogaas baa la dhaliilay ciisuhu dhaliilay u eriyey dad dambaabay oo kale inaad ka dhigtaan ma aha iminka waxay kala taagan yihiin degaankii iyo isagii ciidankii yaraa anaa xukumaya ciidankii yaraa awadu ka baxa waad ogtihiin marka inaan ka dhigno lama taabtaan lama waxeeyaan sheekadaas waxa weeye waa sheeko gaaban weeyaan waktiga la marayo in laga hadlo meesha sartu ka qurantana in la taabto cidda diidan waa cidda iyada laftigeeda kula jirto ee hawshaa ka dambaysa ee annaga ku garab taaganta ku haysa qaraabo maaha waxa meeshaba u dhiibay yaa ka xafiisyada kala bedelaan madax xafiisyadada degmooyinku kala bedelaan
وهبل كدغه وهبل سارة كونترات باغو يرما قندراس كيسغا بخشا هداي كلل تahay هداي دغما تahay هبل ka qaada hebel siiya waxaan garanayaa rag la soo siiyay uu reerkooda ku bedilay imika sida xaqiiqdan ii sheegi afar qandaraas baa ka soo baxday deegaanka afartiiba waa reerka isaga ka dhigay daradi jibu tagay wixii madax halka laga magacaabay ciise ah isaga u wada qoray oo siiyay waa xaqiiq marka waxa weeyaan halkiisii ha ku ekaado oo hogaamiye dhaqameed buu ahaayay hogaamiye dhaqameedkii ha noqdo haddii la yidhi dee madeerkii makaa la gubay tayrkii maka lama gumina run baa la sheegay waana taaruntu cidaan wax ka ogeynay ninkii reer u hadlaya una daaday ku jirtaan in jeclays uu ku jirona waa qaraabo hadday degmo tahay hadday gobol tahay ilaa heer degaan waxa dhisan isaga wada dhisay isaga magacaabay qaraabo ku magacaabay ku ay uur walaal yihiin ku dadii dhashay ku maxay dhashay waa wada qaraabo gabi runtii haddii la sheegay in ma garanaysaa wax kale laga dhiga maaha dhaqankii iyo xeerka dhaqanka iyo siyaasadda ha la kala saaro horena waa looga hadlay ogaasku halkiisii ha ku ekaado imise ogaas baa lagu caydhiyey oo cisuuka lagu garan waayo iska caydhiyey muxuu ka dhigan yahay anagaan uga dhigina maxay ahayday nebi ilaahay soo diray waa qofkuna hadduu in la toosiyo weeyaan hadduu toosmi waayo waa in la bedelo oo ku kale lagu bedelo ma kolka dee cisuuka kala jabe ma garanaysaa nin iyo iminka waaba la bilaababa nina sildaan u qabsadaa dee ayaa wanaagsan ha taabanina qofkii runta sheegay ka hadlana ma garanaysaa in laga dhigo qof dayrkii ma ka gubay ma aha marka in la kala saaro weeyaan tolkay ciisana waxaan leeyahay tasho waa inaad tashatid waxalla wixii arrin uu reerka ay lahaa hadday siyaasad tahay iyo hadday dhaqan tahayba wiilkaayaba ku faru xidhmay oo dhinac alla dhinac laga mare lala'ya marka inuu tashado xaaladuhu halka ay marayaan waqtiga maanta waa lala wada socdaa uu ka tashado waxa soo socda waxa jooga wixii tagay waxaba intuu qiimeeyo inuu tolkeen meel wax isla dhigo oo waxa iska yiraahdo weeyaan baan anu oran lahaa inta ma garanaysaa dadka hadalkiisa guraysa daba guraysa dadka waxaan iyagana oran lahaa waxa fiican adigoo jooga oo fikirkaaga taladaada ka dhiibta $50 oo soo bixiso ka soo dabaadasha anaga waxba nooma taraya hana wareerinina waana wareerseen nugoo dibadda jooga kaalay waddanka gudihiisa oo ma garanaysaa waxaad dadka la qabanaysaan la qabta $50 inta soo dirtaan $50 anaga anugu guumaysanina waa iskaga kaya dhigina maxay ahayd rag cirka iyo dhulka kala hay anigu waxaan leeyahay ilaahay khayrka hana garasiiye ciise ha tashado ha midoobo dee waxna meelaha iska dhigo meeshan uu faruur xidhan yahay iska arka dee meel buu ku wada faruur xidhan yahay oo maxay ahayd dalkiisii lagu qaatay dadkiisii lagu laayay dunyadiisii lagu qaatay
waad arkaysiin dadkeennii bacad bay iyo wada jiifaan wax alla wixii loo soo ururiyey meel alla meelay marin lama garanayo illa wixii loo soo ururiyey halkaasay waa lagu wada fashilmay way ku fashilmeen ogaasku ku fashilmay kuwii maamulka ahaayee qaraabada ahaayee uu istaba dhigay ilaa iyo degaankana way ku fashilmeen haddii laga hadlana de waxaad ka dhigaysaan maxay halka loo taabtay waad arkaysaana dadkeena halka yaallin weligeen maanta maalin aan ka naqanayo ciise uu soo maray ma jirto 3 sano wax ciise ku dhacay weligii ma soo marin geetana waa la sheegayay weligii maanta wuxuu ciise halku taagan yahay ciise waa reerka ciise Soomaali oo dhan waa beesha ugu naqan waa beesha u liidata waxaasoo dhan ka dhigayana waa wiilkaaya ee loo wada faruur xidhan yahay haddii runtii la sheegay de ilaahay baan runtan sheegaynaa anigu waxaan leeyahay ciisow tasho oo isku tasho dantaada garo meeshan aad wada faruur xidhan tahayna bal arag oo hoos ugu fiirso waan ka baxay hadalkayga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu